ciidanka dowladda oo garab ka helaya ciidanka deegaanka ayaa shalay la wareegay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Deegaanada ay ciidankan la wareegeen waxaa ka mid ah deegaanka Ceel Dheere oo qiyaastii 15 kiiloomitir u jira degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. Deegaanka Ceel Dheere ayaa ahayd deegaan marin muhiim ah u ahaa gobolka Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. La wareegida deegaanka Ceel Dheere ayaa waxaa soo dhaweeyay qaar ka mid ah xildhibaano hore, waxgarad, aqoon-yahano iyo ganacsato ka soo jeeda deegaanka. Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanka ka soo jeeda deegaanka Ceel Dheere ayaa soo dhaweeyay in ururka Al-Shabaab lagala wareego isagoona horumar weyn ku tilmaamay. qabashada hadda Ceel Dheere Buraale la qabtay dhinaca kalena yacni looga soo dhow yahay Aadan Yabaal horumar weyn weeye aad iyo aad ayaan ugu amaanayaa uguna bogaadinayaa howlgalkaas waxaana isleeyahay guulahaas waxaa ka dhiman Aadan Yabaal oo sida ugu degdegta badan la qabto si labada ciidan oo labada gulufna Hiiraan ka yimid gulufna dhinaca Shabeellaha Dhexe ka yimid ay isugu soo darsamaan oo yacni meel dhexo fatraha oo dhaxaysaaba aysan jirin labadii howlgal isku soo xirmaan markaasna howlgalkaas labadaas ciidan ay jahooyinkoodu u noqdaan qaar jaha galbeed oo laamiga ka galbeed ah howlgaladoodu u jahaysmaan iyo qaar deegaanada la joogo barigooda u jahaysma oo degmada Ceel Dheere iyo jahooyinka ku aadan ilaa halkaas ilaa xeeb ayay noqonaysaa shaqadaas guushaasana sidaas looga baahan yahay isleeyahay dawladda iyo dadka deegaankaba waana inta ka dhimanan isleeyahay guulaha deegaankaas aad iyo aad dhamaystirka u noqon lahaa. Xildhibaan hore Maxamuud Geedi ayaa sheegay la wareegida deegaanka Ceel Dheere inay ka horeysay guulo badan oo ay gaareen ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka kana gaareen dagaalada ka socda gobolka Shabeellada Dhexe ee u dhaxeeya ciidanka dawladda oo garab ka helay dadka deegaanka iyo ururka Al-Shabaab. guusha shalay oo ciidamada dawladda iyo macawsuleyda iyo dabciin saaxiibada Soomaaliya iyo shalay ku qabsadeen deegaanka Ceel Dheere waxaa ka horeeyay guulo fara badan oo ay gaareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed macawsuleyda ay kaashanayaan taasoo ka soo bilowday meel u muuqata xagga bari ka aadan degmada Jowhar Raagaceelle tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmada Cadale sida Geelgub Cali Guduud Nuur Dugle mugaan inta la gaaro oo loo gaaro Aadan Yabaal meel u jirta 15 kiiloomitir waxay sahlaysaa inay dhawaan halka ay ku wada dabaaldegaan labada halgan ee ka kala socday Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. waxaan markaa rabaa halka inaan baaq ugu jeedo dawladda Soomaaliyeed in aan ku iraaho si aysan guusha ay soo bilaabeen heer Hiiraan looga dayday inta dhiman ay ku dayad doonto si aysan u dhicsoobin ciidamada dawladda faraha badan leh intaasoo soo tababarayay ee awal aag la kala geeyay ama meel la kala geeyay la weysanay waa in la geeyaa dhammaan talisbanka jiray ee xoogga dalka Soomaaliyeed si meel ka mid ah Soomaaliya haddii dhaqdhaqaaq hore laga arko ama lagu sheego si isla markiiba iyo gacan ku siyaa dadka deegaanka aheeday. Cabdullaahi Maxamed Aadan oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka ayaa ku tilmaamay qabsashada deegaanka Ceel Dheere inay tahay horumar weyn oo laga gaaray dagaalada ka socda deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe ee lagula jiro ururka Al-Shabaab. qabsashada deegaanka Ceel Dheere ee 15 kiiloomitir u jirta deegaanka Aadan Yabaal ee degmada Aadan Yabaal waa horumar weyn laga gaaray dhinaca la dagaalanka Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo guud ahaan Hirshabeellaba. runtii waa guul weyn oo ay keeneen ciidamada maxaan ku raahdaa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka intuba ay iska qarabsanayeen arrinta ayada ah waa farxad waa horumar waxaan rajaynaynaa insha Allah maalmaha nagu soo aadan the next 3 to 4 weeks 3 ilaa 4 week oo maanta laga bilaabo ah in Hirshabeelle gabi ahaanba sheekadeeda ay soo xirmi doonto loo gudbi doono gobolada kale galmudug wixii ka dhiman bay mudooyinkaas ku soo dhamaan doonaan kadibna Jubbaland iyo Koonfur Galbeed loo gudbi doono shaki kuma jiro haddii sida hadda ay arrinta ku socoto darta iyo carcarta ay ku socoto aan laga dabcinin oo imkaaniyaadkii ciidankana ay helaan iyo sida logistikada ay helaan waxay noqon doontaa progress weyn oo la gaaray hadafkii qarankana uu lahaa ay halkaasi maaragtay ka cadaan doonto khaasatan tilmaamihii madaxweynaha